Waxaa jiray wiil yar iyo wiil weyn oo ku noolaa badda agteeda. Waxay doonayeen inay ka soo daadsadaan geedka midho, balse way awoodi kari waayeen. Kii weynaa waa uu ku daalay oo laag ayuu la dhacay geedkii ilaa ay lug ka jabtay. Kii yaraa waa uu ku qoslay waxyeelada soo gaadhay walaalkiisa weyn. Kii yaraa waxa uu doonay inuu geedka koro, balse waa uu ka soo dhacay. Kii weynaa ayaa isna ku qoslay. Kii yaraa baa waxa uu samaystay qori yaro xaleef ah si uu geedka ugu tuuro uu midho uga soo daadiyo, balse dusha ayuu ka mariyey oo badda ayuu uga dhex dhacday. Kii yaraa baa cadhooday, kii weynaana waa uu ku qoslay. Markii dambe baa dabayl soo martay geedkii oo aad u ruxday. Waa ay sugeen intay wax ka soo dhacayaan, xataa ilaa markii dambe ay wax xabad midh ah u soo dhacday. Kii weynaa baa kii yaraa iska qabtay oo midhkii weynaa isagu inta uu jabiyey uu keligiis cunay. Kii yaraa baa baaqigii dambe ka sirtirtay oo soo jeediyey. Markuu soo jeestay baa uu ka qaatay. Kii weynaa baa ka hadhi waayey baaqigii oo eryay kii yaraa ilaa uu kii weynaa xiiqay oo uu carari kari waayey. Kii yaraana wuu cabbay markaa baaqigii hadhay. Markii dambe geedkiis ka hoos seexday, dabayl baa haddana ruxday geedkii oo soo riday midh weyn oo madaxa uga dhacday. Midhii abaa badda ku carartay oo ay ka daba carareen ilaa ay badda kula dhaceen. Rafaad badan ayaa gaadhay oo bahal baa soo eryaday. Naftooda khatar ayay gashay. Ayagoo oo naxsan baa waxay arkeen wiil yar iyo wiil weyn oo ku nool jasiirad kale oo badda dhexdeeda ah, oo samaystay wiish ay ku soo gurtaan midhaha. Waa ay daawadeen cabbaar ilaa ay arkeen nimankii oo dhargay oo nooc walba geedkii ka soo daadsaday, oo markii dambena ciyaaray ama dheelay. Ayagii baa is eegay oo tashaday oo ku tashaday inay sidaas oo kale sameeyaan. Waxa ay samaysteen wiish yar oo macmal ah si ay imika ugu meel gaadhaan. Kii weynaa baa kii yaraa ku tuuray xagga sare. Kii yaraana midho fara badan ayuu ka soo daadiyey geedka. Markuu midho badan ka soo daadiyey ayuu kii weynaa yidhi, soo bood, anaa ku qabanaya. Halkii bay midhihii cuneen oo ay ka dhargeen. Sidii nimankii kale baa ay iyaguna u noolaadeen.